بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا داوديال برنامج غاره او ku aadan war degdeg ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda ku dhawaaqay xabad joojin lagu soo afjarayo dagaalkii 12 maalmood u dhaxeeyay Iran iyo Israa'iil haddaba maxay yihiin waxyaabaha uu Donald Trump soo gudbiyay ee la xiriira xabad joojintan iyo goorta ay dhaqan galayso maxay yihiin erayada ku jira warka uu soo saaray Donald Trump ee la xiriira xabad joojintan oo dad badan ay aaminsan yihiin in Iran aysan aqbalayn Iran arrintan ilaa hadda warka ay ka soo saartay iyo jawaabta ay ka bixisay gaar ahaan mas'uuliyiinta Iran oo gordhawta mid kamid ah oo warbaahinta la hadlana waan idin soo gudbin doonaa dhanka Israa'iil waxa ka socda iyo xabad joojintan sidoo kale waan eegi doonaa waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee warkan daqiiqada ka hor ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka xaaladda bariga dhexe dhowr saacadood ka hor waxay maraysay meel aad iyo aad u halis ah kadib markii Iran ay qaaday weerar xagga cirka oo ay ku duqaysay saldhig Mareykanku uu ku leeyahay waddanka Qatar inkastoo Mareykanka iyo Qatar ay sheegeen in wax qasaaraha weerarkaasi uusan sababin isla markaasna badi gantaaladaasi laga hortagay marka laga reebo hal gantaal oo ku dhacay meel bannaan ayaa hadda waxaa soo baxaya warwarkaasi ka duwan sababtuna waxay tahay baa leeyahay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay xabad joojin laakiin xilligan oo xabad joojinta uu ku dhawaaqay Israa'iil duqeyn ayay ka wadaa magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran iyo waliba meelo kale oo kamid ah waddankaasi Iran inta aanan idin soo gudbin mowqifka Iran ee la xiriira xabad joojintan iyo Israa'iil dhankeeda waxaynu ka hormaraynaa fariinta uu soo gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump haddaba baraha bulshada madaxweyne Trump wuxuu soo dhigay fariintan waxaana uu kaga hadlayaa waxa isaga ay la tahay arrintan iyo go'aanka la qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in heshiis buuxa oo xabad joojin laga gaaray dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran sida uu sheegay Trump xabad joojintan waxay bilaaban doontaa qiyaastii 6 saacadood gudahood si labada dal ay u dhameystiraan hawlgaladooda military ee ugu dambeeya macnaha waa la isjafi karaa laakiin 12 saac gudahood ayaa xabad joojintu ku hirgeli doonta ayuu ula jeedaa 6 saacadood raalli ahaada 6 saacadood aan ku socono Trump wuxuu leeyahay xabad joojintu waxay socon doontaa 12 saacadood marka lagu dhawaaqo ama la gaaro markaas oo dagaalku si rasmi ah loogu aqoonsan doono inuu dhamaaday wuxuu qoraalkiisa ku sheegay Iran inay bilaabi doonto xabad joojinta halka Israa'iilna ay bilaabi doonto 12 saac kadib macnaha 6 saac ee hore Iran xabad ma ridi karto Israa'iil laakiin 6 saacadood xabad bay ridi kartaa oo macnaheedu waxa weeyaan 6 saac markay dhamaato oo 6 saac oo kala dhamaato 12 saac kadib ayay Israa'iil xabad joojinta ku dhawaaqi doonta ayuu ula jeedaa aan ka hormarno sidoo kale wararka uu sheegayo madaxweyne aan ku sii soconno madaxweyne Trump warka uu sheegayo wuxuu leeyahay marka la gaaro 24 saac gudahood dagaalkan oo ugu magac daray dagaalkii 12 maalmood wuxuu sheegay inuu si rasmi ah u dhamaan doono wuxuuna sheegay in lagu maamuusi doono ama laga soo dhaweyn doono caalamka oo idil Trump ayaa sheegay in muddada xabad joojintu socoto labada dhinac laga filayo inay ahaadaan kuwa is nabadgeliya is ixtiraamana wuxuu muujiyay kalsooni buuxda oo ah in qorshahan uu socon doono sidii loo qorsheeyay isagoo bogaadiyay labada wadan Trump wuxuu yiri waxaan jeclaan lahaa inaan u hambaliyeeyo Iran iyo Israa'iil geesinimadooda adkaysigooda iyo garaadkooda ay ku soo afjareen waxa loo bixiyay dagaalkii 12 maalmood waa dagaal ay suurtagal ahayd in uu sii socdo sanado badan oo burburiya bariga dhexe oo dhan laakiin taasi ma dhicin mana dhici doonto abid ayuu hadalkiisa ku daray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
wuxuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa fariin barwaaqo iyo duca. wuxuu yiri eebba ha barakeeyo Israa'iil, eebba ha barakeeyo Iiraan, eebba ha barakeeyo bariga dhexe, eebba ha barakeeyo Maraykanka, eebba ha barakeeyo dunida oo idil. Donald J. Trump, madaxweynaha Maraykanka. waayo fariintaas waa fariintii uu soo diray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. haddaba xilligan oo barnaamijka aynu wadano waxaa lagu soo warramayaa militariga Israa'iil inay ku dhawaaqeen goobo ay leeyihiin dadku ayna iskaga baxaan. macnaha dagaal baa lagu jiraa. haddaba Iiraan maxaa war laga hayaa ilaa hadda oo ku aadan warkan ka soo yeeray Donald Trump? aynu eegno warbixin goor dhaweyto ama daqiiqada ka hor uu baahiyey telefishinka CNN ee laga leeyahay waddanka Maraykanka. mas-uul sare oo ka tirsan dowladda waddanka Iiraan ayaa wuxuu u sheegay telefishinka CNN Iiraan inaysan helin wax soo jeedin xabad joojina, mana aragtaa la yiri sabab ay ugu baahato xabad joojintaasi. mas-uulkan ayaa waxa uu sheegay Iiraan in ay sii wadi doonto dagaalka ilaa ay gaarto nabad waarta, isla markaasna ay u aragto hadallada ka imaanaya Israa'iil iyo Maraykanka in ay yihiin kuwa khiyaano ah oo loogu talagalay in lagu sababeeyo weerarada lagu hayo danaha Iiraan. waqtigan xaadirka ah cadowgu wuxuu ku hayaa gardarro Iiraan. Iiraanna waxay ku dhowdahay in ay bilowdo weeraro aargoosiya oo xooggan iyadoo aan dheg u dhigayn beenta cadowga, ayuu yiri mas-uulkaasi. dhinacaas waa dhinaca Iiraan iyo warkaas Iiraan ka soo yeeray. haddaba dhanka Israa'iil maxaynu ka ognahay intaanan u imaanin arrintan iyo waxay ka macno tahay iyo faraqayaashu waxay ka leeyihiin. Israa'iil dhankeeda aynu eegno. war hadda soo dhacay intaanu barnaamijka ku jirnay ee waxaa la sheegayaa golaha wasiirada Israa'iil in ay leeyihiin kulankaas ayaa waxaa la sheegayaa dhowr saacadood inuu socday, isla markaasna waxaa leeyahay waxay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay xabad joojin soo afjaraysa dagaalka Tel Aviv iyo Tehran u dhaxeeya. kulankii marka waa dhammaaday, hadduu soo idlaada la leeyahay saacado ayuu socday. weli laakiin Israa'iil war ma soo saarin. laakiin ilaa iyo saacadihii soo dhaafay warbaahinta Israa'iil gaar ahaan telefishinka kanaal 14 oo inta badan ku hadla afka Netanyahu wuxuu sheegayay dagaalku inuu ku dhow yahay inuu dhamaado, isla markaasna inta badan la gaaray wasi hadalka loo dhigay ujeedooyinkii laga lahaa dagaalkan. haddaba arrintan maxaa lagu fasiri karaa ayaa la leeyahay. dhowr qodob baa laga eegayaa. mar waxaa la leeyahay Iiraan maanta weerar bay qaaday caaw fiidkii waa iyadii duqaysay saldhigga Maraykanka uu ku leeyahay waddanka Qatar. inkastoo dowladda Qatar ay u digtay oo ay tiri weerar baan soo qaadi doonaa, laakiin waxaa la leeyahay arrintaasi waxay ahayd fariin loo diray Maraykanka oo ah dagaalkan waa ballaaranayaa, sidaas ayaana u duqayn karnaa saldhigyadeena. sidaas ayaa loo fasirayaa. Maraykanku marka wuxuu dareemay cagajugleyntii Trump meesha inay ka baxday, sababtoo madaxweyne Trump markuu ku dhawaaqay weerarkii lagu qaaday xarumaha nuclearka ee Iiraan wuxuu sheegay wasi hadalka u dhigay haddii Iiraan tilaabo damba ay qaado in si ka xoog badan sidii loo weerari doono. la soco maalinta berri oo Talaada magaalada Hague waxaa ka furmi doona shirka wadamada NATO. afayeen u hadashay NATO oo la weydiiyey bacdama saldhig Maraykanka uu leeyahay la weeraray, NATO arrintan xagee bay kaga jirtaa? waxay tiri waxaa suurtagal ah qodobka ama xeerka shanaad inaan ku dhawaaqno maalinta berriya in la dhaqan gelinayo. qodobkaas marka muxuu yahay? macnihiisu waxa weeye haddii waddan ka mid ah NATO la soo weeraro in wadamada kale dagaalka ku biiri doonaan. ilaa hadda hal mar baa la isticmaalay 2001 markii la weeraray daarihii mataanaha ee ganacsiga ee magaalada New York September 11keedii. NATO waxay dhaqan gelisay xeerkaas. waa tan la weeraray Afghanistan inkastoo habqan looga soo baxay dhowr sano ka hor, laakiin markaas ayaa la isticmaalay. hadda marka xaaladdu waxay u muuqan kartay inay ka sii darayso. Iiraan marka waxaa leeyahay waxay muujisay dhowr qodob inay ka soo kabatay
dharbaaxadii maalmihii ugu horreeyay weerarka lagu dhuftay taliyaashii laga dilay saynisyahanadii laga dilay xarumihii la duqeeyey wadankii oo khalqal la geliyay laakiin 48 saac kadib taliskii militariga ee wadanka Iran hal mar ayuu dib isku habeeyay dhinaca kale wafdi ruush ayaa ku sugnaa saacad wafdi Iran ayaa waxay ku sugnaayeen wadanka ruushka saacadihii la soo dhaafay xitaa madaxweyne ku-xigeenkii waa madaxweynihii hore ee wadanka ruushka ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha amniga qaranka ee wadanka ruushka Dmitry Medvedev wuxuu sheegay Iran inay diyaar u yihiin wadamo siinaya hubka nuclearka inkastoo uu sheegin wadamadaasi haddana waxa loo qaatay ruushka laakiin galabta ayuu war soo saaray ama caaw fiidkii isagoo leh hadalkayga anigu ulama jeedo ruushka ayaa Iran siinaya hub nuclear sababtoo ah buu yiri Iran si lamida sida ay u saxiixday heshiiska NPT iyo Mareykanka laftigiisa oo aha in la faafin hubka nuclearka ayaa anaguna saxiixnay buu yiri laakiin waxa jira wadamo diyaar la ah inay siiyaan nuclearka ma wuxuu ula jeedaa Kuuriyada Waqooyi ma wuxuu ula jeedaa Pakistan ilaa hadda ma uusan cadeyn laakiin wuxuu yiri wadamadaas ayaa diyaar u ah sidoo kale arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo wafdi sare oo ka socda Iran maalmihii la soo dhaafay ama saacadihii la soo dhaafay wadahadalo ay kulamo iyo wadahadalo kula lahaayeen magaalada Moscow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sida halkan kaga muuqata waxa hogaaminaya dhanka Iran wasiirka arrimaha dibadda wadanka Iran Abbas Araghchi afayeen u hadlay aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay in Ruushka diyaar u leeyahay taageero haddii ay dalbato dowladda wadanka Iran taageeradii marka miya dhaqan gashay ma Ruushka sheegay inuu taageeri doono Iran oo hub siin doono lama oga isla maanta Iran waxay laga duqeeyay 6 garoon ayaa Israa'iil duqeysay waxaana la aaminsan yahay garoomadaasi in ay ka soo degi lahayd taageerada Ruushka haddii ay hal lahayd hub iyo waxyaabo kale marka arrinta ilaa hadda la leeyahay waxay tahay Trump ma Israa'iil runta u sheegay oo ku yiri dagaalkan inta ka badan anigu dagaal ma gali karo aduguna iska dhicin kartaan Iran kamana guuleysan kartaan dagaalkan aan soo afjarno Israa'iiliinta ayaa 10 maalmood waxay ku jiraan dhulka hoostiisa malaayiin qof boqolaal kun ayaa u dhoofay dibadda ama u qaxayba iyagoo tahriibaya annaga ma cid sidaas ah mas'uuliyiin Israa'iil ay waxay lahaayeen dagaalkan intaan ka badan ma sii wadi karno sidoo kale arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo Iran maanta ay ku dhawaaqday dagaalkan diyaar inay u tahay inay sii wado 2 sano oo soo socota marka Trump sida hadda mas'uulkan Iiraaniga uu sheegay ma khiyaanay ka tahay ma daacad bay ka tahay oo dagaalkan wuxuu doonayaa in la soo afjaro ama ugu yaraan xitaa Mareykanka inuu ka laabto gacmaha oo yiraahdo Israa'iil haddii aadan aqbalin xabad joojin iyo heshiis iska dhaci Iran adiga leeyahay xaaladdu marka halkaas ay maraysaa warka nuxurkiisu waxa weeye madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xabad joojin uu sheegay in laga gaaray dagaalka ka socda ama ka dhex socda Iran iyo Israa'iil 12 saac gudahoodna xabad joojinta dhaqan gali doonto isla hadda Iran inay xabadda hor bilaabi doonto joojinta xabad joojinta 12 saac kadibna Israa'iil ay ku dhawaaqi doonto siyaasan dagaalku ku dhamaan doono laakiin mas'uul Iran ayaa waxa uu sheegay telefishinka CNN inaysan helin wax soo gudbina oo la xiriirta xabad joojin iyo isla markaasi in ilaa hadda aysan jirin baahi ayaga ay u qabaan xabadda in la joojiyo walow laakiin Iran ay qabtay in marka hore haddii la doonayo xabad joojin iyo heshiis in Mareykanka iyo Israa'iil ay joojiyaan weerarada markaas kadibna la isku yimaado marka arrintan waa arrin cusub warkan hadduu soo dhacay wixii ku soo kordha waan arki doonaa barnaamijyada soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa gaar ahaan barnaamijka subaxnimo ee xulashada wararka waagaga haddaba intaanan ka bixin barnaamijka ama aanan soo gabagabayn warar kale oo degdeg ah hadda soo dhacay warbaahinta waddanka Iran waxay sheegaysaa in diyaarad nooca droonka laga soo riday Israa'iil waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo goor dhawato duqeymo Israa'iil ka geysatay magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran dhinaca kale mas'uul Iiraaniya ayaa u sheegay warbaahinta Sacuudiga in ay soo gaartay hindisaha xabad joojinta laakiin weli
go'aan aysan gaarin waxaa kaloo wararka ka mid ah in la leeyahay arrintan xabad joojinta waxaa aad uga shaqaynaya amiirka waddanka qatar macluumaadkan waa kuwa ugu dambeeya waan iska soo dabadhacayaan wixii warar ah ee ku soo kordha arrimahana barnaamijyadeena dambe gaar ahaan barnaamijka xulashada wararka ee subaxnimada ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo inta ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkan waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka haddaba si aad ula socoto wararkan iyo xaaladahan iyo macluumaadkan dhabta ah haddii aad ku xiran tahay HBN waad ku mahadsan tahay haddii aadan ku xirnayn oo markii kuugu horreysay ay tahay ku soo biir